waxaa habeenadii tagay dalkaasi Mareykanka ka howlcaysa oo hawada dhan haysata haweenay dalkaasi u dhalatay oo aan muslimad ahayn balse samaysay tijaabo bulsho oo ay ka dhalatay natiijo dood culus dhalisay kadib markii ay wacday 26 kaniisadood iyo hal masjid iyadoo weydiinaysa caanaha carruurta ee loo yaqaano baby formula oo ay sheegtay in ilmaheedu uu u baahan yahay gabadha oo tijaabadan ku samaysay TikTok magaceeda waxaa la yiraahdaa Nikali Monroe waxaana wacday kaniisado badan oo waliba codadkoodii iyo cinwaanadoodii soo bandhigtay waxaana waliba kaniisadaha ay wacday kamid ah midda la yiraahdo Dream City Church oo ku taala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona oo uu hore uga tirsanaa Charlie Kirk oo ahaa faalayahan muxaafid ah oo 10 bishii September la sheegay in lagu dilay gobolka Utah ee dalkaasi Mareykanka yarkeeda kadib markii ay 23 kaniisadood u dayriyeen oo ay ka soo quusatay iyadoo qaarkoodna ay waliba u sheegayaan inaanay lahayn barnaamijyo wax lagu caawiyo oo noocaas ah gabi ahaanba tii ay jirto inay markasta u shidaysay codka carruur ooyeysa oo markii dambe wacday masjid la yiraahdo The Islamic Center of Charlotte oo ku taala gobolka North Carolina tayaab kaliisa waxay noqotay in isla judhiiba iyaga oo aan weydiinin waxa ay tahay diinta ay haysato iyo weydimo kale ay kaliya su'aaleen nooca ay yihiin caanaha ay doonayso iyo inay meelaha ka dhowdahay oo ay masjidka iman karto si ay u qaadato kadib gabadhii waxay u mahad celisay qofkii telefoonka ka qabtay ee masjidka joogay oo ay u sheegtay inaanay caano doonaynay ay tijaabo samaynaysay marka lafteedana qofkaasi war kale siima geline talkii ayuu iska dhigay isagoo iyadana u mahad celiyay arrintan ayaa haddaba si weyn lagaga hadalhayaa dalkaasi Mareykanka oo idil iyo dunida qaarkeed iyadoo dhalisay falcelin togan oo ku wajahan muslimiinta iyo guud ahaanba diinta islaamka oo dad badan ku tilmaameen mid ka damqasho badan kanaa'istooda qalbi caaga ah iyadoo ay qaarkood ballan qaadeen inay hadda kadib masaajidda tagayaan inay diinta islaamka baran doonaan iyo in khalad laga fahamsiiyay muslimiinta oo ay wanaag ku wada arkeen dadkii muslimiinta ahaa ay si gaar ah ula macaamilaan qaar baa xitaa soo jeediyey inay hadda kadib carruurtooda masaajidda uga tagan doonaan iyo wixii lamid ah haddaba aanu eegno qaar ka tirsan falcelinta dadka Mareykanka ah waliba anagoo soo qaadanayna dadka aanu qiyaasayno inaanay muslim ahayn Stacy Atkins ayaa soo qortay xarunta muslimka ee aagayga ku taala wax badan ay caawisaa dadka baahida qaba halka kaniisadda halkaas ku taala aanay caawin anigu ka masiixiyad ahaan kaniisadda kalama qayb gali karo munaafiqiintan ayay tireen Timothy White ayaa isla soo qoray tan waa kaniisadda ugu horeysay ee Baptista ah ee Dallas ku taala wadaadkoodu waa Robert Jeffries waa taageer weyn oo maaga iyo Trump ah dabcan lacag uma hayo baby formula maxaa yeelay gabigood waxa uu ugu deeqay Trump Lorena Horton ayaa iyadna soo qortay maqalka ilmo yar oo baahi la ooyaya aan misna dan laga lahayn oo ooyintiisa la dhageysanayo xitaa haddii aan la ogeyn in arrintu dhab tahay waa mid aad u xanuun badan oo ay walaacinaysa qof kale oo ku soo gala ABVH ayaa isna soo qoray waxaan leeyahay muslimiin badan oo daris ila ah iyo qaar aan wada shaqayno oo si aanan filaynin cunto ii siiya sida cad taasi waa qaabka ay u nool yihiin oo sidoo kale jirta dood ku saabsan in kaniisaduhu maadaama ay muxaafid iska dhigaan dhaqan ahaan ay ka soo horjeedaan inay haweenku carruurta iska soo ridaan balse maadaama ay cunug yar oo caananuug ah caawin waayeen taasi waxay ku noqotay dood ku furtay inay yihiin munaafiqiin Texas Iguana ayaana soo qoray dhaga hadal arrintaa ku saabsan isagoo leh ilmuhu waxay kaliya qiimo leeyihiin marka ay minka ku jiraan balse qofna ma sheegin inay qiimo leeyihiin marka ay banaanka uga soo baxaan Jesus Lewitsky ayaa iyadna tiri dadka yiraahda waxaanu taageernaa nolosha oo ay dabcan ula jeedo isla kooxdii aanu ka soo hadalnay waxay tiri waa beenlooyaal qadcan ah iyo munaafiqiin joogsi Pat Bash ayaa iyadna tiri waxay wacday masaajid muslim ah wayna caawiyeen aniguna waxaan ahay Irish iyadoo dabcan malaha ula jeeda anigu muslim ma ihi Tammy Brogans ayaa isna soo qoray anigu waxaan ahay nin weyn oo darbijiif ah kaniisaduhu cidna ma caawiyaan geerida ayay kuga eeganayaan waxa kaliya ay daneeyaan waa lacag in aad u yar baa ku caawin doonta Sandberg ayaa iyadna tiri waa inaan ka tagaa diinta masiixiga si aan u raaco cilmigii nabi ciise calayhi salaam oo dabcan ula jeedi karto inay qaadato diinta islaamka maadaama diinta kaliya ee masiixiga ka baxsan ee haysa sheekada dhabta ah ee nabi ciise calayhi salaam ay tahay diinta muslimka Jack ayaa isla soo qoray aad bay u yara xoogan tahay in arrintan laga soo daawado min bilow ilaa dhammaad in caanaha carruurta ee formulaha la siiyana waxa kaliya ugu yaboohay 2 kaniisadood oo madow ah iyo hal masjid Fastaneko ayaa soo qoray kaniisadaha badankoodu waxay weydiinayeen xubin miyaad ka tahay kaniisadeenna laakiin qofkii joogay xarunta islaamigu waxa weydiiyey halkan ma u dhowdahay formulaha aad u baahan tahay se waa noocee sida ay cagsi labadooda iskugu yihiin waa mid argagax igelinaysa ayuu yireen Stacy and your face ayaa idna soo qortay kaniisaduhu dhib kuma qabaan inay xubnaha ka tirsan lacag weydiistaan balse markii dadka baahina iyaga kaalmo weydiiyaan dhabarka ayay u jeediyaan waana mid aan madaxa la ruuxayo
ayay tiri. Maxamed Xaaji, Hadal Same TV.